أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء وحان سمينا عربنا هرتينان قرآن كريم كأكفرنا وحين أغري دونا محمود بح إن شاء الله فليتفضل. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إلهي يا مهدله الله يسوق كان هل كان إن جرنسية إن أينو جرنو دنتنا وحن آذي آذو فرح سنة هاي أنا وأحمد بح إن أن إنتنو غير ما آخر أهرتو ذا أنا ما أنت كهلو شرفوين بإيتاي إن وحوي أنا جو دسدا إلى وضع سعتان بوحان دجانا هاي أو دجان كيو أها وضع كسوتك إمارات كعربتا وضع كان مدلل بس إنه وضع الحس بنكو إيماني بريك دلني يرى أو حفلة ذي أنا وجوجا يجوا oo tiro badan baan arkay oo reer maakhir ah dhalinyaradii markaan arkay waxa aad ila qurux badnaatay maadaama oo intaas soo reer maakhiri ay joogaan wadanka ay ku dhaqan yihiin wax community iyo wax jaaliyadana aysan lahayn war inbal dadkii inta la isugu yeero jaaliyad loo sameeyo fikradda ninkii ugu horeysay aan kala hadlay wuxuu ahaa Faris kadib ilaahay khayr ha ka siiyo ana ka abaal mariyay horta maanta halkan imaashaha aynu isugu nimi oo aynu quruxda iyo xafladda isugu nimaadno ninka urmoodka ah ee aan habeen iyo maalin fadhiisan Faris weeye waana ku mahadsan yahay dhalinyaro fara badan oo uu ka mid yahay Cabdi Fataax Shaah uu ka mid yahay Cali Samatar uu ka mid yahay Cabdi Xakiim ee ka mid yihiin Faatax dhalinyaro aad u tiro badan oo hadda aanan magacyadooda halka ku soo koobi karin iyo hablaba ma sha Allah aad ay noogala shaqeeyeen waxaanuna aakhirkii aanu soo gaarnay inaanu halka isugu keenno sida ogtiin group baanu sameynay groupkii ayay ka dhalatay in halka la isugu yimaado waa wax aad iyo aad loogu farxi karo in aynu wax qabsan karnana waa mid aan anigu ogaa oo aan mar walba ku taamay inta kadib waxaan u mahad celinayaa Aamino oo iyana aad iyo aad noola shaqeysay gabayre oo isna runtii aanu muddo dheer imaaraadkana ka soo wada shaqeynaynay ninaanu saaxiibnahay walaalanahay oo runtii aad isugu dhownahay oo isna la yiraahdo Umar Axmed Saalax oo isna runtii aad isna rag noola shaqeynaya waxa weeye maanta waxaan rabaa horta marka ugu horeysa in aan inaga inoo hambaliyeeyo marka labaad waxaan rabaa inaan soo hambaliyeeyo oo soo dhaweeyo dhalinyarada magaalada Baran kaga dhawaaqday badbaada maakhir waxaan halka u marinayaa dhalinyarada in aanu heel iyo hooba haddaanu nahay jaaliyadda reer maakhir ee Turkiga ku dhaqan aanu heel iyo hooba la garab taaganahay soo dhaweynayno wax badanna aanu sugaynay fariinta aanu u diraynaa waxay tahay inaanay noqon wax la kac ah oo sidii kuwii hore inta ay maalmo socoto hadhowto iska damta inta kadib anigu deegaanka meel baan kaga tiirsanaa meesha aan kaga tiirsanaa waxay ahayd inaan ahay nin abwaana oo fanaana oo deegaanka u heesay muddo badanna u soo heesayay laakiin maanta nasiib darro waxaan ka cudur daaranayaa in aan fankii joojiyay laakiin haddaan fankii joojiyay ma aanan joojin hal abuurnimadii iyo kartidii iyo muwaadinimadii aan deegaanka mar walba u hayay hadda waxaan rabaa inaan markii aan fanka dee uu ila qurux badnaa oo aan waday hees aan ugu talagalay
oo aan rabay inay noqoto heestii labaad ee maakhirtu erayadeedii inaan halka idinka soo gudbiyo waan jeclahay. haddii aan kaftan yar ku darana heestii hore hees bay ahayd dee deegaankeena laguma soo koobi karo hal hees magaalooyin yaryar oo aan dee ay ila baalmartay kuwa gar layga dhigtayna waa jiraan kuwii ayaan maanta halka ka sheegi doonaa. Cali Samatar dhab buu qoslay oo ragga aan berigii hore ka tegay buu ka mid ahaa. marka waxaan leeyahay maasadani sidan ay odhanaysaa: waxaan ahay nin maakhira meel kastaba adduunyada magacaygu waayaan, buurta golis ku meertiyo badda maalka weyn lee mawjaduhu isrogayaan, marsadeedii laas qoray minankayga weeyaan, manaa iyo durduri iyo ceelaayo mudantii milxo waa rugtaydii laas macaan anaa diga, moon iyo ragaad iyo markad ilaa hadaaftimo nin mushaaxa baan ahay maakhiri dhabaan ahay, ma hilmaamin laagoo galgalay ku maran tahay shimbiraale muruq iyo midnimaan ku joogaa, shimbiraale muruq iyo midnimaan ku joogaa, calmadow ulxeed iyo sibaayo iyo mindhicir baan maamuusayaayoo qoyan mawlac weeyaan, muunadii xubeeriyo mahuraankii badhameed mindigaliya laakiyo mareydii cawsane ceel daahir malab iyo dhaybaan ku maala. tii hore waxay ahayd rad baan ciir ku dhamaya, laakiin tani waa ceel daahir malab iyo dhaybaan ku maala. buraan oo mug weyniyo midigteeda dhahar baan milicsadaa baraagaha, ceel buhay ma hiigaan xingalool mawaashigu anay iima jiirtaan, damalkiiyo mankiisii carmalu ka muuqdaa waa damala xagre, yubbe marinka loo maro ceergaabo mayalkiyo maqaamkeenni weeyaan, dhulka aan magacaabo maansada ku tiriyayo mahwi kaloo ka sii badan, muddo dheer saldanad baa majaraha u hayso, maalin qura gumaystuhu majahooda may dhigin, ma hawaysan gelin oo majahooda may dhigin. halka haddaan ku yaraha kalo qoyska aanu nahay reer liibaan baa la yidhaahdaa. liibaan awowahay waxa uu dhalay 7 nin, 7 nin 2 nin keliya ka hana qaaday, 5tii kale waxaa loo dilay deegaanka, 1 nin baa uur ku hadh ka tegey, 4ta kale iyagoo 20 jira ah bay u go'een. waxa weeye raggii maanta halkaa ku dhintay ee halkaa u dhimanayay inteena mid aan awoowihii iyo awoowayaashii aanay u dhimani ma jiro. maxay u dhimanayeen? waxay u dhimanayeen inaynu inagu xorriyad ugu noolaan oo inaan cid u daba fadhiisan. waxa nasiib darro ah maanta hadday maanta awoowayaasheen og yihiin tan aynu ku noolahay dee maba dhinteenay, maalmihii iyana taa aynu inagu haysanoo kale iska qaadan lahay. marka waxaan ku soo gabagabeynayaa iyadoo uu guddoomiyihiina inoo imaan doono insha Allah, guddoomiye Cabdixakiim Dhooba Daare. war waxaa loo baahan yahay oo aynu u baahannahay maanta dhulka aynu leenahay cid haysataa ma jirto ama way yar tahay. baddii baynu haysanaa, buurtii baynu haysanaa, bannaankii baynu haysanaa. waxa weeye wax inaga maqan mawaashigii baynu leenahay, wax inaga maqani maanta ma jiraan. waxa inaga maqan in aynu dalkeena inagu u tashano, aynan cidna u daba fadhiisan. tan aynu doonayno oo aynu meel walba u marayno oo aynu geed gaaban iyo geed dheer u koraynaana waxa weeye in aynu dalkeena inagu maamulano oo aynan cidna u daba fadhiisan. inagu aynu noqono dad jira sidii awoowayaasheen u ahaayeen, dad jiro oo iyagu ismaamula oo lagu soo xisaabtamo. iminka waxaan rabaa inaan inoo bilaabo insha Allah biidhnillah. waxaan rabaa inaan ku bilaabo in yar baan ka tegay. waxaan ka tegay annagu markii aan soo habeynaynay meeshan guddi baanu samaynay. guddidii aanu samaynay shirguddoon baan u dooranay, guddoomiye waxaan u dooranay Faris. waxaan mar labaad ku celinayaa in Faris sacab loo tumo ninka meesha aad u
quruxda badan inoo soo habeeyo dadaal iyo hilba geliyey weeye. waxay kaloo xafladdu daaran tahay in aan guddoomiye ku meel gaadha oo jaaliyadda maakhir leedahay aan samaysano, jaaliyadna ababno. dib baynu marka hadalladu inoo dhammaadaan ayaynu ka soo dayn doonaa. waxa aan hadda ku soo dhaweynayaa guddoomiyihii qabanqaabada فارس وحليها فليتفضل فارس. ugu wasalaamaya marti sharafka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha sida quruxda badan leh ay u soo ajiibeen xafladdan aadka u quruxda badan leh. run ahaantii bilowga jaaliyadda run ahaantii waxay ahayd bilowga jaaliyaddu wax waqti badan iyo dadaal fara badan inaad ila soo dhaweysaan guddoomiyihii hore guddoomiye cabdixakiin maxamed axmed. guddoomiyaha si wanaagsan ila soo dhaweeya iyo wasada iyo cabdifitaax oo runtii waqti badan iyaga naftarkoodu u soo huray inay soo dhawow guddoomiye soo dhawow ku soo dhawow. way mahadsan yihiin guddoomiyaha iyo cabdifitaax runtii safar aada u dheer oo 5 saacadood ka badan ku soo qaatay bay noo soo geliyeen siday uga soo qaybgalayeen iyagoo istabalkii. waxaan codsan lahaa mar labaad inay soo dhaweysaan. intaa markaa ka nimaadno runtii waxay wax aada loo bogaadiyo. waxaan bogaadinaya cid kasta oo fikradeeda maskaxdeeda muruqeeda iyo maalkeedaba gelisay inay qabsoonto xaflad noocan oo kale aada u qurux badan. qabanqaabadii xafladda runtii waqti badan bay geliyeen dad dhalinyaro ah oo ugu horeeyo maxamed gabayre cabdisaaq maxamed gabayre cali samatar cabdixakiin xaamid oo runtii waqti aada u fara badan geliyey maanta oo iyaga naftikooda si ay meeshan ugu qabsoomi lahayd quruxda badan. waa bogaadinayaa qabsamidda xafladda maanta waxay noo daaran tahay 2 arrimood oo kale. arrin wuxuu yahay horta bal inaynu ogaano xuduudeenna iyo yacni inta aynu leegnahay aynu ku joogno Turki oo aan weliba aaminsanahay inay jirto dad aada u fara badan leh oo aan soo ajiibin xafladda. innagu haddaba og inay intaas oo qof aynu ku joogno meeshaan run ahaantii waxaad moodaa haddana inay habacsanaan aada u fara badan ay jirto. waana sababta u noqotay inaan maanta halkan isugu nimaadno isugu waraysano intaa wixii ka dambeeyana aynu samayno bal in aynu qorshe yeelano. waxa xaqiiqa qorshaha aynu maanta halka ku yeelanaa inaynu beritoole uu saameyn ku yeelan doono kan baran jooga kan ceergaawo jooga kan dheer jooga. meel kastaaba wax kastaaba meel bay ka bilowdaan. waxaan rajaynaynaa marka inay noqoto tani balbilow fiican. waxaan halkan runaantii aan rabnaa maanta inay ku qabsoonto doorasho taasoo aynaynu hoggaan samaysano. arrinka quruxda badan leh maanta halka maraya hore usii ambaqaada hore usii wadi kara istiraatiijiyad fiican la iman kara bulsho aada u fara badan oo halkan degan hogaamin kara. intaa wixii ka dambe inay saameyn ku yeelan doono deegaanadeeni. ma rabo inaan hadalkayga sii dheereeyo. waxaan ugu dambeyntii kusoo khatimayaa taageero iyo bogaadin. waxaan taageerayaa oo taageeraynaa dhammaanteeda badbaado maakhir. aad buu mahadsan yahay Faris yare. waa runtii ninka maanta dadaal gaabnadiisa ha arkinina ee ninka maskax iyo aqoon badan baa ku duugan. maasha allah waa ninka dadaalka aynu maanta halkaa isugu nimi tafaha u xigtay.
waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo haddana nabadoon maxamuud xasan maxamuud oo insha allahu isna dhowr kelmadood halka inooga yeedhi doono. ka qaybgalayaasha xafladda, odayaasha, dhalinyarada, waxgaradka dumarka oo dhalinyari waayo isku jira, waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kaloo bogaadinayaa xafladda tan dhalinyarada soo abaabushay oo hadda inuu ka warramaysa, iyana aada iyo aad baan ugu mahad celinaya. Soomaalida waxay ku maxmaadaa rag shir waaye iyo naag shir weyday, labadu waa tilmaan. raggu hadduu shir waayo dee waxa ma jiraan. maanta shirkan haddaynu isugu nimi magaalada Ankara la yidhaahdo, maanta ninka waxaa lala yaabi jiray ninka la yidhaahdo Jibriil, waa wuxuu waraan samaysano maakhirka samaysano, waa lala yaaba. aakhirka dhig baa hoojina waa waalaya, laakiin waxay ahayd wax danta ku jirto. haddii maakhir la wado meelo badan bay ka socotaa, baran bay ka socotaa, haddii la kulu yahay dhul badan bay ka socotaa. haddii lasoo wado waxaa laga gaarayaa guul iyo wixii la doonaya baa laga gaarayaa iyo horumar. aada iyo aad waxaan u bogaanaya waxaana tahay dee shirka waa kulli rag waa iska badan yahay, rag fiican oo waana iga horeeyeen. hadalkuna wuxuu ku dhan yahay intii ay yidhaahdeen. waxaa la yidhi ninka hadalka yaqaan hadduu hadalkaaga horeeyo hadalku hamba male. horta iyo hadalkooda waa arrintu ku dhantahay. aniguna intii baan naaxinaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa yahay mar labaad waxaan bogaadinaynaa gudoomiye cabdixakiim maxamed axmed oo isagu si sharaf leh nooga ogolaaday inuu nagala soo qayb galo shirkan dhalinyarada maakhir iyo jaaliyadda maakhir ee Turkiga ku nool. dib baan u dhiganayaa hadalkiisa, waxaan yara horumarinayaa dhalinyarada ardayda iyo aqoon-yahanka iyo haweenka. hadda waxaan kusoo dhaweynayaa aqoon-yahan cabdifataax shaah oo wax badan isagu ka og jaaliyadaha iyo sida loo dhisay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وبعد. يقولين قدومي هوري دولة بثلان عبد الحكيم حاجي محمد وبداري جالية خير ما آخر دلك تركيا هوين إيو دلنيروا والسلامية sidoo kale waxaan salaamayaa guddigii runtii isku xilqaamay xafladdan sharafta leh kasoo shaqeeyay. runtii anigu dadkan halkan fadhiya in badan oo kamida kolay ma garanayo. reer maakhir dadka Soomaaliya burur ka dhacay kamid yihiinoo caalamkaasi ku kala baaheen. laakiin anigu waxaan cabdifataax maxamed cabdullaahi shaash baan ku magac dheerahay, intii taqaana alxamdulilah, inta kalena hadda isbaranaynaa. anigu runtii muddo dheer waxaan kasoo shaqeynayay reer maakhir siday u noqon lahaayeen dowlad. cadow badan baan ku yeelanay. cadowgaas laakiin meel fog ka dooninina reer maakhir. sayidka maaqaan runtahayo waxaa la yidhi warheedhe qoladaa reer maakhir ee halkaa warsagada sandaleyd, dad baa xitaa magaca warsagal waxay haystaan warsagada sandaleyd. dadka deegaanka degan oo dhan baa la oran jiray oo loo yaqaanay ingiriisku yaqaanay. micnihii dad badan oo kala duwan baa degan oo qabiil ah, laakiin maanta reer maakhir baa la isku dhahaa. wuxuu yidhi cidda ay maagayaan oo caayayaan ninkaas ay ugu fiican ka dilaa. marka hashiida intaada rag baysa ragba oo aan banaanka ula bixinba dagaalka koowaad ba xaafadda baa kaaga bilaabanaya xaaska wala laga filayaa. horta cilada haysta weeye. taas runtii anigu 2010 baa wadankii ugu dambeysay markii aan boqosho ku tagay. waxaan ardayda ugu horeysay dalka Itoobiya jaamacadda ka galay. waxaan ka qalin jabiyay 2013 Agosto, 7 sano laga joogaa. markaa runtii aan halkaa wax ka baranaynay ardayda Soomaaliyeed halkaa joogto wax ka barata gaar ahaan Addis Ababa farkutiris bay ahaayeen. runtii halkaa waxaan ka aasaasnay jaaliyadda koowaad ee Soomaaliyeed ee laga dhiso
بن إذا شيء ما وحنا قلتي جالية يقوى أوض بدن توبيا حفلة اللي كسوق بقالين من فدرالة ودول توبيا كمان وحنا إكسسوية لأني إن أنا كو قبضنا مالي هجوم يمسنا دولة حرم دولة البولي ميكائيل مش دولة بطريقة إن شاء الله لو جولستي عمل كاس هذا أو طبعا السبيعة هي طب ما عشان سنة قرب الهندية اللي بسميه وحسين إن عالم كي دولة دي ما آخر وقع أساسي تبع على سنة 2007 لما كوني يتطور بس لأن مركز بدلاني السومالي اللي أنا أحكي ما عفيناي ما كسر جوري وحني بدلك يوغندا ونحن سنود البيس جو هذا لما كوني لابد كسر جوري رنتي جالية داس وركي هذا بالعصوم معه ومن الله حيو قف كسر ما آخره أما ودن كي هجوجو أما ودن كان هجوجو وركي هذا حيوي سومالي لا ويلا هذا شو بلاني يكون أول كود بدع ما قرأت waxaa reer maakhir go'aamin adsaaba wax leeyahay Kampala ama meel ay joogin idina isuba timaado waxaan ku guuleysanay sanadkii 2019 inaanu dib u dhisno jaaliyadda Soomaaliyeed waanu aan Soomaali soo keenno waanu aan taraasulo xidalkii aan ku lahayn aan Soomaali kala siino waxay ku timi midnimo iyo wadajir ku timi jaaliyaddaas Uganda aan ku dheeraaday waa role model dhalinyaro badan oo aad iga yar baa meesha fadhida وين الرول موديل إذا نقطع بعد ما آخر وهذا هو جامعية قدومية نيكولورينشي عبد الرحمن دوري وحاليا إن هي هل كرير ما آخر هل كسوق جرا عندي فرصة بين الساعة السوداء بين الساعة على ورحمة الله وبركاته. مدنيال ويرد يقبلوا شباب ضد قبول بدن أهل كمشي ولا فدية هذه كسلامية صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة مركان كقدبنا ما شاء الله تبارك الله أنت سينو بدقالة بتشوفنا إيه إنك بدل وافر جبارنا وهاي نسوقون الحمد لله نسيب وحاله ما أنت نسبرنا وحن شرف مضن ولاش يعني سكان كيني وحن نسوقنا إن شاء الله وحليدي كسوقي ذي كان خير يبركوا إن شاء الله قولي يبرواقوا وحنا سيدا ينمدي هور الشيغان أنا هذا المهيو ينمدي وحي الشيغان ودنك ينبو ينسوقيا أنا قال أنا مسؤولية دي كويد السوقية شبابه أنا وحنا هواية القرح حسب توكتا دي كويد السوقية قرحت ودنك شقة ديسة علمي كيسة وحقرت كيسة السكينة ديسة إذا كويد السوقية دارها تركي جينا جمالهن شينكدي كويا اللي بري بينو لنا هذه كاسان ودنا لقوا هرادين أو لقوا قاشون أو لقوا دحمون أو لقوا قبوبون بينو عيسنا وبيو سابورا ودادنا يعني ومرها جيت كهوسي ساد كدر كيسي هرب إنه هاي سنة هركنا إنه إلاشنا أو كنا قلنا ويسكت رسالنا إذا كان لك السقيا أنا جوا حنون هاي وايلكي حدين شيء لكن واحتركي وضنك إذا كويه وبحي وضنك إذا كويه جيت كسد حشر لقى مع سدا مرة عليتها لقعنا مرة من كان لقعنا مرة مرها صد حدي بإذا كويه جيت كنا وضلكي إذا كنا واحد يوحي لقعنيه فإذا كينيه واحترك كينيه دارها سعود تركي جاي أيدين هوس جوكتان أيدين أنت هبيكي سوتشدان أرورتي ساحتان مع إنه ردنا هرودا وحبا أيدين ترى ميسو نقول ما هول بوكيمي قرش بوكيمي أهل بوكيمي دب بوكيمي دبتي وكيمي دفتي دي بعدين كربا إن شاء الله. iminka waxaan u yeedhayaa bulshada rayidka ah cali samatar oo afkooda ku hadlaya waa ninkii noogu afka xooga weyn ee ila tahay marka waxaan leeyahay dhammaan waa salaamayaa shirweynahan jaaliyadda qiimaha iyo sharafta badan ee reer maakhir turki waxaan kaloo si gaara oo sharaf badan oo dahab aan u salaamayaa سياسيين وين حرمت له تناسله عبد الحكيم محمد أحمد سياسي دوبة داريت إنسان ونسافر دار نص وقلي سو دت كيسان شريد ديسان غير ماخر وقلا غيب قلا شروينه هو ده كان ما أنت أو بيش اللي حد أي تهيشان أو صبتي أكد عي أنكرا ومعسمات دي لود دري
si dahaba uu ajiibay ugana soo qayb galay waa uga mahad celinaynaa intaa ka bacdi halkan waxaynu maanta u fadhinaa markii ugu horreysay anba is ammaane soomaalida turka joogta inaynu noqonnay haddaynu reer maakhirnahay ciddii u horreysay oo jaaliyad qabsata si gaar ah oo waliba hotel 5 star ku qabsata waa innaga intaa marka intaa uga gudbo jaaliyadan aynu maanta dhidibada u taagnay waxaa la rabaa iyaduna inay qurbahan ay joogto isku filaato oo aanay meel kale wax uga baahan ciddii u timaadana ay ku soo hirato waa maamul ama dawlad qurbeed jaaliyad haddaad maqashaan marka dawlad qurbeedda reer maakhir ee turkiga waxaa la rabaa inay ka soo baxdo waxaa looga baahan yahay loo aas-aasay oo maanta halka kan ay u maalgashatay oo halkan loo fadhiyo meel walba dhegtaa looga taagayaa jaaliyadan turkiga ee reer maakhir maxaa yeelay dadku hadday meel joogaan waa inay ka muuqdaan oo ay maamul leeyihiin oo isku filaadaan cidna ay wax tari karaan dalkiyoodii ay ka yimaadeen ay talo iyo tusaale ay kusoo kordhin karaan intaas waa jaaliyadda aynu ka aasaasnay waxaan kaloo intaa aan ku darayaa oo aan si weyn aad iyo aad u weyn u taageeraya aynuuna u taageersan badbaado maakhir urur siyaasadeedka badbaado maakhir caasimadda baran looga dhawaaqay waxaan leenahay dhiig iyo dheefba waa idinla garab taagannahay halkaas sidii ragga hore sheegay bay ku jirtaa sharafta iyo karaamada madaqada tan anigu aan u aqaano full country haddaad bad leedahay buuro wax walba ay ka baxaan aad leedahay durdura aad leedahay xoolihii ay bannaan iyo buurba ku daaqayaan waa full country waxaan leeyahay maanta taladii waa la hayaa oo haddii la kala qaybsanaa oo bari iyo galbeedda kala jiray hadda galbeed waxaa ka dhacay waa la soconaayo dhulkiinii dhista ayaa ka dhacday dhulkiinii dhista marka waa inaynu si weyn u soo dhaweynaa oo qofka waqooyi ama hargeysa ka waayay xilka ka waayay aanu niyaddu aanay ka jabin oo hadduu meeshaas uu awlax ka raaci jiray aanu soo cidlo kusoo dhacay waxaan u sheegaynaa walaale soo dhawow dhul aad leedahay mantaqad aad leedahay maamul aad leedahay deegaan aad leedahay ayaad leedahay nin cidla ku dhacay ma tihid gabadh cidla ku dhacay ma tihida maakhir baynu dhisanaynaa dhiigna u huraynaa dheefna u huraynaa naf iyo maalba u huraynaa haddaanu meel kasta joogno haddaanu reer maakhirnahay warkaasi inuu cad yahay ayaan u malaynayaa aad u mahadsan yahay cali samatar waxaan hadda u yeedhayaa dhalinyarada waddankan wax ku barata ee inoo joogta nin afkooda ku hadlaya waa faatax yare waa faatax nabadoon cali cabdulaahi faatax waa nabadoon qarsoon mudanayaal marweyn waa mahadsantiin marka koowaad marka labaad waxaan u mahadcelinayaa guddida qabanqaabada shirka maakhir ururka maakhir ee ankara waxaan si khaas oo gaar ahaan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha dhoobo oo naga ajibay inuu shirkan nagala soo qayb galo marka xigta ka ardayahan anuu afka ardayda ku hadlaya ardayda wax kasta oo ururkaas ay ka dhinac ahaan ama dee wixii qabanqaabaa war meel kasta oo aynu tagno haddaynu reer maakhir nahay u yar socod baynu nahay waxaa jirtay nin fanaana oo ayaa maalin kaftan buu sameeyey qabiilooyinka Soomaaliyeed ayuu kaftan ka dhigo wuxuu yiri jannada ayaa qabiilooyinka Soomaaliyeed loogu yeeray qolo walba markii la yiraahdo war reer hebelow jannada soo gala waxbay weydiisay qolo waxay yiraahdeen meesha ayaa ka madaxa markaas la yiri ilaahay meel aan madax ka noqonin geli mayno bay yiraahdeen
qolo waxa la yidhi waxay yidhahdeen meesha Soomaaliya ma ku jirtaa ha annagu Soomaali mar hore aan ka goona meel la kelimayna bay yidhahdeen marka ninkaas nin fanaan oo shactireeyay abu ahaa marka waxaan uga dan leeyahay wuxuu ku soo daray qolyaha reer Maakhir baa la yidhi soo gala jannada waxay yidhahdeen meesha baayac mushtarkeeda yaa haysta warmeesha baayac marada baayac mushtarkeena nagu kelimayna marka waxaan uga dan leeyahay inagu meel allaale iyo meesha aynu tagno ganacsigeeda iyo waxeeda aad baynu u dhisnaa laakiin dhulkeena waxa moodaa in kacfulnay la kaga aqriyayo nin warshad yar ka sameynaya baran ma jiro iyadoo hadda laamigii galay iyadoo hadda jaamacadii Maakhir waxaan aad ula yaabay jaamacad dhan oo aynu leenahay Maakhir baa samaysantay haddana waxaad arkaysaa ardadii bariga jaamacadda bariga Afrika ku wada jiraan kalsoonidii ahayd war jaamacad baynu leenahay inagu baaba jirinba hadda haddii la yiraahdo intii warshadood ee adduunka ka shaqeynayaba baran baa laga furay ninka reer Maakhir wuxuu kaga kalsoon yahay inuu boosaaso warshadiisa ka ganacsado garan maayo waxay tahay marka waxaan rabaa oo aan doonayaa in aynu mar walba ku baraarugsanaano war dhulkeena inaynu inagu wax gashanno odayaasha iyo waxgaradka reer Maakhir ee deegaankii jooga waxaan rabaa inaan idhaahdo war dhalinyarada wax soo bartay jaanis hala siiyo tan kale oo dhalinyarada ka maqani waxay tahay nin dhalinyaro ah oo maanta reer Maakhira oo haddaa weydiisid wuxuu garanayaa in Suldaan Maxamed Cali Shire la oran jiray dalka hogaamin jiray bas taariikh kale oo uu garanayaa ma jirto dhulkaan inaan la gumaysan dhulkaan in saldanadii ka talin jirtay alla janno iyo raxmaha siiye Maxamed Cali Shire wuxuu ahaa ninkii yiri foorarsan maayo boqorada Ingiriiska waxa loo xidhay wali maysan dhicin boqor inta Afrika laga soo qaado la xidho waxa loo xidhay gumaysiga la dirir uu gumaysiga ka cararayay marka inay dhalinyaradeenu ay taariikhda bartaan Maxamed Cali Shire wuxuu lahaa garbo uu ku duulo oo nin walba leh ha marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ganacsato Faaduma Jaamac oo iyana halka afka ganacsadaha ku hadlaysa ganacsadayaal badan way noo fadhiyaan oo way jiraan laakiin waan siinaynaa Faadumo waxaan leenahay Faadumo waxay ka mid ahay dadkii qaybta libaax ka qaatay dhaqaalihii hoteelkan ku baxayay waxaan leenahay soo dhawow السلام عليكم دمانتين كلاب وناكسي ما شاء الله ماشي انتي اللي فيلي وبكسي قروح بدن تايبا runtii waana farxad aad u weyn oo waqti badan sugay maanta waqti badan ma aynaan gelin laakiin natiijadeedu aad u fiican tahay maadaama halkan inta qof oo reer Maakhira oo runtii mid walba ay keentay hami iyo niyad iyo maaragtay in la isku tashado iyo fikrad aad wanaagsan oo saliim ah intaas oo qof ay hogaaminayso oo moodo inay isku wada fikir yihiin oo kulli isku meel loo socdo inay halkan isugu yimaadaan ma sha Allah halkan waliba Turki ah oo qurba ah حقيقة هو واحد ونفسه وأنا واحد عم بليان وأنا هم بليان يا بنتي دلني هردنا مسؤولين ودن كيس بعيد بيقول كلنا نقنايا كيس شلع صبوحون نقنايا كيس باهم بهراء ومرينايا مركا وحوي دلني يرضى وحبرنا يصح وحبليه قبل بالله إن أي موتيان مسؤولية إن يوجدك مسؤول كيه قفك علمي قبرتها دتك إنه كدوانا ذا بلدونية ويسووا هرمود النقد هجانيو وايو حنبارسيه علمي أما مادة هالنقد أما ديني هالنقد وحوي علمي وحنبارسيه إنه دتك وكاستفيد أو كم مقضى يلو بهيه وهذا المستقبل وهذا يقول نقطة المستقبل إفيها علمي جينا الوطن كله ولا نقطة إن دتك وحلو برا إن محيط هنا وطنك وحلو قفطه سدا وحوي يعني تشيلك صوص عضاء أما تشيلك أيمن ضوانا أما تشيلك هذا جوجا وطنك وحلو قفته محيط أنا أوليدية
maakhir wadankiisu aad ayaynu dadka uga dambeynaa saraxatan hadaynu runta isu sheegno meel kastaynu joognaba marka wadankeeni kuwa wuxuu qabta ee ka dhiidhiya isku xidhnaada iska warhaya ilaahay subxaana watacaala haynaga dhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa insha allahu marka aynu gudoomiyaha iyo hadalku inoo dhammaado ayaynu taageli doonaa waxaan u yeedhayaa axmed shaakir oo isna laba kelmadood inoo odhan doona kadibna waxaanu toos u gelagelaynaa marka hore waan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo qabanqaabiyayaasha shirkan gudoomiye cabdixakiin iyo dhammaan haldoorka halkan isugu yimi dhab ahaan shirka iyo hawshiisa wax badan kalama socon oo qof mashquulkiisu yaro badan yahay baan ahay haddana marka la yidhaahdo bulsha isu timi si ay aayahooda uga tashadaan horumar tubtii loo qaadi lahaana ay isula gartaan in la taageero in la dhiirigeliyo in la isgarab taago unbay mudan yihiin sababtoo ah horumarka soomaalidu waxay tidhaahdaa xagla laaban xoolo kuma yimaadaan haddii aan la is arag la wada fadhiisan la ogaan dhibaatada jirta iyo baahida taagani maxay tahay kadibna aan la isweydiin xalku muxuu noqonayaa waxaa hubaala inaan xal iyo horumartoona la gaadhay aad baan u bogaadinayaa in laga wada hadlo oo wax la iska weydiiyo sidii bulshada halkan joogta ay isugu duubnaan lahaayeen isaga warhayn lahaayeen qofka baahan qofka dhiban qofka xanuunsanaya iyo guud ahaan bulshadaba bulsho isku xidhan oo iska warhaysa sidii ay u noqon lahaayeen dhab ahaan waa arrin bogaadin mudan oo aan aada u soo dhaweynayo arrinta ku saabsan siyaasaddii dalka ma jecli dadka siyaasadda aada u dhexgala ma yihi laakiin hal qodob ayaa muhiim ah bulshooyinka waxaad moodaa weliba gaar ahaan bulshada sanaag iyo reer sool oo inala wadaaga waxaad moodaa waxaa la isku eedeeyaa meel la isdhigay ummaddu haddii aanay marka hore go-aan ka lahayn siyaasadeed waxa jirana go-aan ay iyo qaab ay u dhaqaaqaan aanay lahayn oo jahwareer marka hore wax walba lagu galo iyo qof waliba inuu tiisa unu dhaqaaqo dee horumar lagama keeno waa inay jirtaa bulshadu inay talo leedahay hoggaano leedahay dhaqdhaqaaq kasta oo adduunkan ka yimid dhalinyarun baa u ahayd asal sumad garan dadka waaweyn waxay tari karaan talada iyo dhaqaalaha iyo toosinta iyo ayuunbay moogtahay ku taageeri karaan laakiin dhiigga cusub ee aan daarayna fadhiisanayo dhalinyarada laga rabo dhalinyartii waxba ma doonaya mushkilaad kale waxaa u sababa burbur bay ku dhasheen burbur bay ku barbaareen burbur bay wax ku barteen hage wanaagsanna lama helin oo waataynu hadda iskala hadlaynaa innagoo dhan baa arbishan waxaa jira dad role model oo lagu daydo mee dadkii lagu dayan lahaa ma jiraan taas marka waa dhibaatooyinka dhalinyaradaas ka mid tahay marka waxa weeye dhalinyarada waxa kale oo mushkilad labaadiyan ah oo haysta dhalinyaradu waxbuu sii baranayaa aqoon buu imanayaa aqoontu waxbay bedeshaa waxbaa lagu bedelaa aqoonta lama arag hadda ka hor aqoonaan waxba bedelay lama arkin waa waxyaabaha la yaabka aqoonaan waxba bedelaynin hadda qofkii maxaa lagaga daalo waxba bartay waxa weeye waxaa laga rabay anfac naftaada inaad anfacdid waalidkaa inaad anfacdid kadib dalkiiya dadka inaad anfacdid laakiin haddaan waxba bedelayn ba aqoontii waan idiin sheegaysaa inaan waxba bedelayn kulli hadda markaa wada noqotaan oo xagga tagtaan waxaad ag fadhiisanaysaan oday jafidiina odaygii la rabay inaad bedeshaan idinku oo aad wax cusub la tagtaan oo aad tirahdaan waxan oo dadkan la isku xidho la ismideeyo colaadda la yareeyo kana ina necab iyo kana ina jecel iyo kana ina siiyo kana seen noo galayo waxa in meesha laga saaro adigii saamayn halkaad ka yeelan lahayd ninkaagi wax soo barto rabin wax bedelo oday koofiyad bacdaha geedka fadhiya saamayn kugu yeelanaya dawtana isaga daba taagan badankiisa wada amartay
oo leeyahay reer baa wajifidii ku xigtay waa dadkii ku xigay reer baa ina nacab reer baa sayn oo galay reer baa waa seetay reer waa kan waxa marka waxyaabahaas oo dhan way jiraan war aqoontu waxa bedesho anu hadda xasee waxbaan la baran oo deema ruwaayada meeshan isaga jooga ama meel kasta wax laga baranayo way aqoon wax bedesha ma jirto haddii iminka dadka aqoonta inoo soo barta hadday intay isku xidhmaan keliya urur samaystaan aqoon-yahanada oo ay shaqeeyaan cid walba ayaa ka awood badan laha wax walba inuu bedeli kari lahay ma jirto arrinta marka hanka intaasaan ku daraya oo dhalinyarada ahaan aan ugu daraya waxaan kaloo rabaa inaan xusuusiyo eg ummaddu hadda waxaa laga hadlayay ganacsi xaamid sheekada qosolka badada ka sheekeynaya jannada ahay ganacsiga anigu runtii ma jecel hadda anigu ganacsadaan ahay 20 jir baan ku bilaabay bis baa garoon baan leeyahay laakiin haddana ma jecel ganacsiga waxaan u jeclayn kale inagu tilmaamayaan sheegaya maxaa ganacsigu wuxuu u baahan yahay hantidan waxaad ku ilaalisid baa loo baahan yahay hadda siyaasi kastoo soo baxa ganacsitaa soo saarta mid kasta oo ama Soomaaliya ka soo baxo ama adduunka ka soo baxo وهذا تنمك مريكان كيو شرايقا سوق دريا إيجا سو صاري جناح سيجانو مرك هذانو عروري الناق دافين كذي واحد السيو أنا أقول يلا ما لقى دست وأنا عد سو صاري وأنا هي عمي وأنا وحبدري محو مرك جناح سي أنا جناح سي جنا وأنا تريا حبينا ما تريا ساعة شيء قاعد نودانت مرك وحبينا ما نفعيه ده يلا هذا أنا وحكون تريا حبها برانينا جناح سي وحاي وحبدري كربرت سياسة ده waxaad bariis ku raastaa habaranina waxa bariis ku doorataa habaranina hankeena ka qaadno dumar iyo caruur iyo ninka inuu gursoonaaga caruur shaqeeyo wala ingiriiska ku tagayo shiro maqasaan ka fito xabulniyo inta waxa leeyahay naagtii caruurtii caruuraheena iyo caruuraheena dadka kale kama fiicnaadaan inay gelitaan mooyaan marka maxaad gelisaan waqtiga Soomaha inaad dadka wax siisaan oo aad ummadda waqti siisaan waxaan rabay in caruur balaa ama inoo soo baxdo oo dad wax bedela ilaa waqti baa la geliyay ma hayno marka waxaan nimayaho waxaan xusuusinayaa waska caan warkaasi laakiin waxaan xusuusinayaa war halkaa waxay noo galeen haddaad ku dadaashid markaa nin dhalinyaro tahay meel aad joogtid oo dada joogtid haddaad ku fikirtid hadda nimankii jannada lahaa yaa xukuma nimankaasaa la socdaa dee waa han bay leeyihiin ganacsi maxaan cunaa male iyo han iyo ganacsi iyo waxa ka hadlamayaan wuxuu ka hadlayaa xukumo meesha ha inaan laga sarreyn buu rabaa ujeedkiisa waa intaa ku fikir inaan laga sarreyn adigu meel kasta joogtid haddaad group isugu timaadaan ummadda kale ah ay ku jirto adigu isku day inaad xukuntid isku day adigu inaad hogaamisid haddaanad koowaad noqonayn ka labadaa noqoto isku day laakiin ka aamusanaha iska daba jooga ee maxay ahayn raranayo adigu inaad ha noqon arrintaa marka waxaas oo dhan cudurka ina hayaan nimayo anigu aad baan arrintaa u baaray research badan baan ku sameeyey runtii aad baan ugu wareegay nimayo waa halkaa burbur hadda dib ugu noqon maayo 30 sano soo dhaafnay dadku saddex arrimood buu ku badbaaday saddexdii midna maynaan helin qabqabla ugu liitay waxbaa lagu badbaaday qabqabla soo ninkii xumaaya dadka leeyahay ma ayna umada dhacay waa lagu badbaaday waayo waxa loo ogaaday rarkaas inuu nin balaa leeyahay ciidan iyo hub iyo waxa leeyahay wixii halkaa u dhiga waa lagu badbaaday waa wixii ugu liitay xataa waa weynayna marka si saddex shay baa lagu badbaaday siyaasi miisaska la fadhiisanayo oo dawladii hore wax la soo goostay oo nin wax og ah oo miis kastoo Soomaali fadhiisanayso fadhiisto qaraaca oo yiraahdo waxay waa weynay dadku taa waa lagu badbaaday waa inagu waa weynay ما بتشرين بقى ganacsiga sida wariga ka shaqeeyay waxa dawlad waa uu tacsiin jiray qofka حتى أنا سوق على أنا ومركز سياسة هذا يبالي تعسيني وحلا ورا هنا هبلو هنا تحسيس ورا هنا هبلو ورا السياسة ولا ورا ورا هناك هذه عروتها أو شقيس ورا هذا ورا إلهي منطقة ورا الإسلام منطقة وأنا شرك وحقوق يبسني قف هذه والله تعسيني قال ما مركز حكي له هذا يا مركز كاوين ويني ورجع وادو بيني وحكي له قصنا يا دون كصومالي يبشروا بالفلسطينية هدو مصرها هدو صدرها هدو جيبوتيها هدو إلدوريدها من البريك الفلسطينية حكمنا الله دقنا ولا قبت بهذا
ودكي دقن كلها دقن أذقلها ويبدأ قبل أقول لي تعد الهدوء فتح شيء ولا بدأ قبل السماء تكون بدأ منا ما ينانه مركنا ما يوضد ما الله وضع النهار تصير فوقته بل أنا دعي سنه وأنا كل ري قلبت دورنا كهذا روا هذا هنكا أنت سانك كتير وحروا أرنتا هذا كذا علي سومالي لا دور شوين كي قبل كسران كذا وأنا عجيبة runtii horta anigu aad baan u soo dhaweynaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waayo dadku eg ummad maxaa dhaqaajiya dadku haddaanay ciishoon waxay haysteen waayeen cadhadooda aanay boqolkii boqol gaadhin wax ma dhaqaadi karaa talaaba ma qaadi karaa talaaba ma qaadi karaa marka waxa weeye qofku maalin walba inuu wax iska soo qaato ama sisan wax isaga helo meel iska joogo wuxuu dee wax iska caadi ay yihiin waxa weeye waa ka fiican qofku inuu wax waayo oo wuxuu haystay waayo oo wax walba oo uu galo oo ku cishoodo oo ku cadhoodo waa markuu damirkiisu wuxuu dareemayaa waa marka iyadana sidaasaan usoo dhaweynaya waxaan xusuusinaya dadka halka fadhiya ama kuwa media ka daawanaya dad iyagu aad u cadhoonaysa ama ha noqdeen kuwii أنا هذا أنا وكنمي وأمسكون عليه أما كون هالنقطة تديهو قاسي ديجي دعام بيوصل شنو واحد هيستعمل هاد بعض كعرون إنسان إنه ولدي وأنا رجوع إليه ديجي دعام بيوصل شنو دقارة يوصل بحية دور كيو قلال يشرب أوقع شيء روايات بدون سنة حقيقة تهدو ما نتكشوا صعنا marka waa taata la rabaa qofku inuu dareemo damiir aan dareemo meel walba inuu wax ka weynaa fiican madanta aakhirka wax soo baxaya qofku dee waxa weeye marka jinaanka xagga laga maro waxa weeye waa jinac uu ku qaniinaya wante wax kale oo furan ma jiraan hadda qabato saadil waa qaniinaya hadaan uu qaniino waxa weeye wax kale uu ku sameynaya marka arrintaasna waa arrin fiican waxaad moodaa talo wax ku jirto oo dadku de waxaanay raali ka ahayn haba diideen laakiin cara badan oo social media iyo xanaaq badan baa ay muuqanay marka xanaaqa iyo carada badan adeer waxa weeye waxa loo baahan yahay qofku inuu soo galgasho oo soo rafaado oo dadaalo oo tashado oo qofku isdareemo waxyaabahaas oo dhan baa soo degdegaya oo imaanaya saasaan soo dhaweynaya iyada waxaan ta kale oo la sheegayo oo hadda leeyahay waxbaa laga bilaabaya xaggana waa in tale iyana laga leeyahay maaha in hadba la iska soo galo tale laga leeyahay arrintan hadda waxaan arkayay qolo sheeganaysa hore dowladda puntland baa ka shaqaysay oo waa kaas oo arrintaa oo halganba may gelin dadka iyo shacabkaa ka shaqeeyey kuwa ku faanayo qolada meesha anaga loo joogjooga baan arkay waxaa laala waxay gelisay puntland iyo waxay shugan dadkaa ka shaqeeyey dalka degan oo diiday inay isdiiwaan geliyaan oo diiday inay codeeyaan iyagaa diiday iyagaa leh ma hadda iyagaa leh iyo wixii halkaa ka soo baxo faa'iidaaba iyagaa leh kuwaasna shuqulkuma le waxba iyay sheegan iyaga hadda ay sheegayaan anu wax ka suurtagelayaanba ma aaminsani way hoos baan xooga laakiin iyada nafsigeeda waa inta laga geliyay taana intaasaan kaga gudbaya waxaan kaloo idin xusuusinaya maakhir waxa weeye waa hal gobol baynu ka hadlaynaa ama waxaanu ka hadlaynaa dad meel degan waxaanay garab bay u baahan yihin maakhir iyo khaatimo waa laba isku dan iyo isku duruufa hal daaragshana wada leh waa meel wada socda isku talana ka ah inay wax bedelaan taana waa inuu xusuusnaadaa mar kasta oo xidhiirkaasi ku jira shaqooyinkii hadda aan soo qabanay ama shaqooyinkii lahayna wax lagaga guulaystay waxaa jirta in labada reer fahmaan inay isku awra ka dhex taagnaa fahmaan inay isku dan iyo isku duruuf yihiin hadda aragshana ay wada qaataan ayaa laga faa'iiday shaqada imika wax dhiska maanta waan idin sheegaya waa dhammaatay intay dhammaatay oo wax walba aanu dhammaynay waanu qarinaynay oo wax walbaa dhammaadeen ayaa xagga rabbi laga diiday waxa haddaan ilahay aqbalinta socon maayaan
حاجة بالك جديدة هوشي مركي وحول بعد ما دين وإن شركة القبطة وهوشي حتى والبا نوع عنا ماني مجرد وانا لقرينا يو واحد ما هاي من الشيء يو عدو حوا سيدي هذا الشيء دتك وحن لبع عدوها ولد الري ده سوي بالو قرني حاجة بالك واحد سببنا وحاولنا نغطي دولة الفدرالية marka waxa weeye halkankaasi wuu soconaya dhaqaaqaasi wuuna socdaa jaanisadii badnaa hadda tage laakiin wali kuwa furan baa jira oo la rabo in laga faa'iideeyo oo iyadoo mid la yahay oo hal cuud la wada leeyahay oo hal dal la wada leeyahay laga faa'iideeyo ayaa jira hal xusuusnaado oo arrintu yahay qol ciriir ay noqon qol ciriir kaliya ay noqon mar walba hal xusuusnaado inaan cid aan jirto waliba ma xataa khaatimo kaliya dadyo kala jira أنا إسكدن يسكت ظروفنا هاي إسكت دارشنا هاي أو هالشيء هو قاعدنا هنا أنا هلا حسنا أنا تكرار روينا كان الله وأركا بدادة ماخر أركا بدادة ماخر دبا مودية أم بوها يستا إن كوحير أما قلير أما دد عاد فرقترسي وحي كو هميين أما كو هناجين أما أي يو واحد وقتها عريرة أو يجا أو قارويه أريد أصار ويان عادية أورك بدادو وأور ماخر وأور الأبيه أور العدكو قارب ما أنجا تاجرسن أنجا دولت كوتشيفنا أنجا كوحينا وعوي ودقدقاق للربو إنه شقيو صعبه دقدقاق للربو إنه شقيو أنت سوى عادية توما وركاس وعادية وكل عليا أورك بداد قرن وأور بداد ماخر قرن كو بداد ماخر وبداد قرن ولا قرن ما يسعتها هاي يسعتها وما صدق سحدة عبسة بداد ماخر وأور الإسلوجي هاي وأور ضد كان السماستين وأور حقه وأور صحه وأور أنا تاجر صنع سكة طبعا عدي أنا سنيد إن كوحير وضعته وركا عقاتي وحن كون ربينا كل شيء وحن ربينا أقول باقو ضد هل كان شوقا أما غير ما آخر شكته وأن قبيل قرى هين دديو بدنا دل يدبد ميل كستوي شوقا إلا تاجره أوركا إلا تاجره أو عد يعرف iyo wax walba oo la hayo lagu taageero loona aamino oo loo qaato urur ay dadkaasi leeyihiin dhaqdhaqaaq ah bilowday socon doona insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii dalkan iyo dadkani ay ku nasan lahaayeen ama wax rabaa ku gaari lahaayeen amiin taladiisaan wax ku leenahay waxa weeye xiriirkiisaan wax ku leenahay wax walba oo ka fulaya waan ku wada soconaa qolada hadda dalkeena joogtana waxaan u sheegaynaa iyagana waan bogaadinaynaa waxa wanaagsan ee shaqada wanaagsan ee haya aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay wax kasta oo wanaag ah wixii xukumo wada socono wax kasta oo wanaag ah oo ay ku jirto dadkan iyo dalkan dantooda garabkiina ku taagana wax kasta ay ku kacayso iyagana intaasaan leeyahay ururka badbaado maakhirna intaasaan kaga baxaya warkiisu waa cadi aan marnayna waayo dad baa waxaan hadalkaa u leeyahay dad baa waxay sheegayeen meelaha laga lahaa waa kaloo ina dhowro xanaaqsan iyo qolyo iyo kadaa iyo xogaa meel isugu tegay iyo waa dad qolyaha ku seexiya qolyaha reer maakhir laftigooda qayb ka mid ah ku seexiya qolyo kala wadhibsanaya marka waxaan u sheegaynaa inaan warkaa waxba ka jirin ururkaasi inuu urur dadkan leeyahay la islana ogyahay wax luuq lala galay iyo wax mugdi ku jiran aanu ahayn arrintaan ka ku gabagabeynaya waxa weeye waa aniga cabdixakiin ahaan beryahan dambe warba soomaaliya taga mar hargeysa laygala soo hadlaa waxaa la yidhahdaa guddoomiye miyaad imanaysaa hargeysa waxaa ku jirta dhoobaa soo socda dhoobaa imanaya kanaa imanaya waa kan
wiiganuu imanayaa waa ka war maya dibaddaa lagala soo hadlaa masaasa war maya waa igu bataa warkaasi marna waxaa lagala soo hadlaa dhinaca puntland waxaa la yidhahdaa guddoomiye waa soo socdaa guddoomiyihii heshiis buu qaatay lacag baa la siiyey waa kanaa la sameeyey kanaa la yeelay waxa weeye warka maqasaa telefoonadu igu soo bataan masaasi haysta rag xataa dad cadhaysan waxba hubin oo xanaaqsan cirkaa mar yaala soo hadla oo ii wanifa aniga markay ii kiilaan baan aan la helaa warmaa wax weydiisaan marka arrintaasna waxaan rabaa inaan iyadana caddeeyo anu cidaan heshiis la galay iyo cidaan heshiis kula jiraa midna ma jirto cidaan heshiinay iyo cidaan heshiis kula jiraan midna ma jirto wax badan way jiraan iyo hadallo waa jiraan laakiin laba wax asal waa hal shay anigu haddaan xil doonayo meelo badan baa laga yeelay markaan cadhaysnaa baa laga yeelay oo wax walba laygu yeelay haddaan maslaxad ii gaara doonayo dee dhaqaalina waan heli lahaa xilna waa laga yaabaa inaan heli lahaa waa heli lahaa haddaan ka doonato federaalkaan ka heli lahaa meelo kaloo laga yeelay baa jirtay waan ka heli lahaa waxa weeye diyaar maan ahayn hal arrinuun baanu annaga heshiiskaygu sal u ah inuu dalkan iyo dadkan wax maslaxadooda ku jirto ciddaanu heshiinayno cidday doonto ha noqoto weliba haddeer awal waxyaaba kale aan aaminsan laakiin hadda waxaan aaminsanaya baan idiin sheegaya haddaad igu raacisaan haddaad igu diidaysaan meel allaale meeshay doonto ha noqoto soomaaliya dalkan iyo dadkan maslaxadooda meeshii laga helin baanu noo aadeen meel noo calaamansani ma jirto aniguna xil aan rabaa oo aan cid kula gorgortamaya iyo dhaqaale aan rabaa cid kula gorgortamaya midna ma jiro maslaxad aniga ii gaara ninna ugu tegi maayo aniga cabdixakiin ahaan oo amaan dhaqaale kaga doonayo ama aan xil kaga rabo ninna ugu tegi maayo arrintaan waxaan rabaa inaan caddeeyo dadka aaminsan oo dhoobo wuxuu baryahan u aamusay oo waxa weeye malaha odaygu heshiis buu qaatay kanuu qaatay heshiis waan qaadan karaa laakiin waxaan ku qaadanaya waa maslaxad wax raqiisana ku qaadan maayo heshiis haddaan idiin sheegaya intaasna waxa weeye waa aniga warkayga oo baryahan aad u soo laalaabtay maraha waan idinku dheereeyey waxaan ku gabagabeynayaa war dalku iyo dadku haddii qof walbaa ku fekero qof kasta haddii ku fekero oo ku hamiyo bal adigu intaa keliya qaado oo u qaado homo u qaado qof kastaa gabadh wiil hooyo nin oday haddii ku fekero adigu meesha aad joogtid waqti kasta haato meeshaad joogtid dadkan adigu aada magacooda sidataa yaan dabayli kaga soo dhici iyo ku ceeboobi intaa keliya ma qaadan kartaa qofku intaa keliya ma qaadan karaa intaa keliya ma qaadan karaa intaa hadduu qaato qofku halkiisaa geliyo dee qofku meel aan dani ugu jirin ama meel dadkan ku ceeboobayaan tegi maayo hunguriga xun waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan haysta waanu la kicilanahay waa hunguri wixii laynagu sheegi jiray waxbaa ka jiraan u malaynaya waxaa ka qaalisan qofka hankaa war qofku marka xataa hunguri haddaad rabtid si sharaf laad u helaysaa haddaad qof hanle tahay oo sharaf iyo karaamada wallahi sharaf laad u helaysaa waxaan idiin sheegayaa wallahi inaanan been idiin sheegayn taqriiban 3 jeer baa lacag malaayiin doolar inay soo mareen wallahi baan midna u qaadan billaah mana haynaanu baanayn waanu baahnaa waayo dee imsaan baan ah wax walba u baahana qof u baahan laakiin mid walba waxaa iga dhex muuqanayay sharaf darriya karaamo darra iga dhex muuqanaysa maanta shaarkayga waa i cadiya nin maanta aan u ahay magan ma jirto waxaan ka dagaalamayo ka cararayana inaan magan noqdo be marka insha allahu aan qaacidadaas la qaadano qof kastoo imaqlaya oo dadkan ah qof kastoo imaqlayo qaacidada qaado war meesha aad joogtid keliya ku hami dadkan aad magacooda cid baad magacooda sitaa ogaadana qofku hiilka koowaad oo dadkiisa u galaa waxa weeye in la yidhahdo niyow qofkaasi waayo markaasaa la odhanayaa qofkaasi waa gobolka ama waa cidda ah wallaahi qofkaasi waa qof raga wallaahi gabadhaasi waa gabadh fiican wallaahi odaygaasi waa nin macquul ah hiilka koowaad oo dadkaagu waa ka hiilka koowaad marka qof walba hamigaaga iyo maskaxdaada waxaad gelisaa inaanad meesha aad joogtid dadkan iyo dalkan aan dabayl kaga soo dhicin oo aanay ku ceeboobin intaa keliya haddaad qaadatid waxaa la isla soo baxayaa sharaf iyo karaam meel kasta rabnana waa gaadhayna uma jirto oomana waynu noqonaynaa arrinna waan idiin sheegaya war damiirkeennu
aan dhaqaajino war maanta qof ku faraxsan miyaa jira sidaynu nahay ilaah baan ku dhahay qof faraxsan baa jira sidaynu nahay dee waa inaynu iska fadhiynaa marka damiirkeenu ha shaqeeyo qof kastoo ibni aadan ha xisaabtamo ceebta gurigiisa igu soo gelaysa mid kalena waan idin sheegaya oo dhibaato ah jirta taladaana iga qaata dana badan baa inaga dhexaya 1000 danood baa laga yaabaa inaan ka dhexaya waxaa laga yaabaa adiga iyo aniga inaan hal dan ku kala tagno hal dan oo ka mid a danaha kunka intii danooda inaga dhexaysa waa jaraysaa ama waa jaraynaa labadeenu bas ninkaas waa nin xun ima arki karo ima iman karo lama shiri karo ma arki karo dan kalama hadli karo maxaa marka lumay hal dan baa wixii oo dhan ku lumay hal dan wey arrintaana ha la iska daayo oo wixii danta guuda waa in mar kasta laga shaqaynaya danta guud waa inaan lagu kala ufoonayn waa inaan lagu kala cadhoonayn waa inaan lagu kala cadhoonayn waa inaan lagu kala ufoonayn waa inuu qofka aaminaa haddaynu haddan isku qabanay qaacidada qaata haddaan isku qabanay 999 kale baa inaga dhexaya taa ama waynu ka heshiin doonaa ama bandhig baan ka dhigaynaa inta kale ka wada soconaa ka wada hadlayna waxaynu ku kala xabaalsayna waa waxa kama arkaa dantii dhaxal lumaysa oo guud marka arintaas waa talooyin waxyaabahaasi waan idinku badiyay hadalka hadduu bato u qiimo beela aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan rajaynayaa insha allah jaariyadana jaariyad shaqaysa inay noqoto oo macquul ah idinkana insha allah waxaan idin rajaynayaa gool maskaxdiina iyo maankiina inaad furtaanna waan idin rajaynayaa waan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hadda u yeedhaynaa dhalinyaradii halkan soo qaban qaabisay isku soo dubariday madasha aadka u quruxda badan waxaan rabaa inaan mid mid ugu yeedho garabkaygana ay soo istaagaan si aan guddoomiye aanu isla garanay annagu oo in uu 6 bilood meeshaa wado si aanu ugu wareejino guddoomiyuhuna guddoomiye cabdixakiimna uu noogula wareejiyo aynu kulligeenna la wada shaqaynayno marka ugu horeysa waxaan u yeerayaa guddoomiye faris oo isagu ahaa guddoomiyaha guddida qabanqaabada faris halkaas soo istaago cali samatar oo guddida ku jiray waxaan leeyahay soo istaag gabayre isna waxaan leeyahay soo istaag shaah waxaan leeyahay soo istaag hodanna waxaan leeyahay iyana ha soo istaagto marka waxaan rabnaa in aan ku soo wareejiyo kelmadda guddoomiyihii guddida qabanqaabada oo ku wada hadlaya marka u horeysa afkii guddidayada ayaan ku soo dhaweynayaa بسم الله وهرين والسلام يا مر لبعض مدشة قروح ذا بدن له وأنا بقادني يا وأنا ذيك ما حد قينا أنا وأسكت أول سيد قروح ذا بدن يا دوس عجيبتين أتصير ياها إن تكسر قيش عن حفلة مركين تعلق يا مادو رنتي إن شاء الله لسه حفظ ما تدي وقاركود وحوارك يعني إنه واحد أضفط هاي بس هو واحد بربلو wax kastana hadduu xumaado waxay ka dhigan tahay inay inta dambana xumaanayso waxaan runtii waqti badan iyo wadatashi badan ka samaynay sidii aan u heli lahayn qof meeshan aan maanta keenay hore uga sii wada wadatashi aad u fara badan waanu guddiyo ahaan samaynay waxaanu isla garanay in qof 6 bilood loo dhigo haddaba qofkaasi muxuu samayn doonaa muxuuse noqon doonaa halkeese gaarsiin doonaa waxaan insha allah abdaa karim qofkaas halkan inagula wadaagi doonaa oo inu marag iyo markhaanti ka ahaan doonaa meesha uu geyn doono maanta meesha waxa ay halkaa inoo keenay waxaa la yidhi madal iyo ninkeed baa la wada joogaa ninka halkan maanta aanu u dhiibi doono mas-uuliyad aad u fara badan baan u dhiibaynaa
inaanu maanta xafladan isu keenaa dad wax runtii wax fudud maaha sidaas si leeg in jaaliyadan dhan la hogaamiya wax fudud maaha idinku dheereen maayo hadalkii waa la soo dhameeyey balse dadku intooda badan cudurdaaro fara badan bay sheegeen waanu jeclay doorasho shacabku loo celiyo la siiyo qof kasta codkiisa qaato in aanu samayno balse waxaa suurtagal way noqon weyde markaanu soo shaacinay qodobadii lagu qaadan lahaa qofka doorashada kusoo bixi doona ama sharax noqon doona shuruudihii cid aqbasha waa la waayay sidaa darteed guddidu waxay sameeyeen in qofkaas 6 bilood in dhan lagu meeshaa loo dhiibo meesha uu gaarsiin doonana ay noqon doonto doorasho loo dhan yahay oo jaaliyadu ay dooran doonto qofka ay rabto hadalkaa sii dheereen maayo guddoomiyaha doorashada kusoo dhaweynaya isaga qofka inoo sheegi doona waxaan jeclaan lahaa intaa ka horeysa waxaa jirta adeeg baalka inoo yaalo shaah iyo kafe iyo biyo ah waayo markaa okay wax ka dhiganaynaa bacda doorashada ka dhiganaa tamam waayo bacda doorashada ka dhiganaa bidnillah mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinayaa soo ajiibidiina iyo kasoo qaybgalkiina xafladda aadka quruxda badan leh waana rajaynayaa inaan noqon doonin maanta maalinta koreysay noqonna doonin maalinta ugu dambeysay ee noqon doonto barbada ugu wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله أبو مهتسيا وحنشعل هنا جديين وده استاكتان لأنه وحن إعلامنا قدوميها أنه أنقو صوغرنا إنه النقضو قدوميها تالية دماخر تركيا مدو لح بلونا وحنو إسلقرنا أنقو إنتاسو قدية ككوبا markii aanu talageliyo badan qaadanay waxaanu isla garanay gudoomiyaha jaaliyada maakhir ee dalka Turkiga inuu noqdo Cabdixakiim Maxamuud Xasan Maxamuud soo dhow gudoomiye saacada laga bilaabo waxaad qaaday mas'uuliyadii وكسر دويننا قدوميها سلام بيرم إيه شرف السلام عليكم ما عندي بو سلامتين وحنوك السلام يا سلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريستا إنه فريستا وحسيك أرو سلام يا قدوميها وحسيك أرو سلام يا قدوميها عبد الحكيم دوبو وميلفو قدومي يمي رهانتي أنا قبان هين مشرح قدومية حل قاضينا ما راين مركان ماشيمي لكن قديدا دورشدا مركا يسوق تجان وحي قرتين ما دام أن مرشح ترين عبد الحكيم وحنو كعصرنا لح بلاد مدة إلى حل كان لوسي قبت أنا قلنا هو قرب تاعنا بلانتا قادين يجا لقسوية أنا قلنا واقع أيدي إمك ورتينا لو حاجة شيء جيا إن أكو أيدي أريكاس كل يوم صوت دورنا نانيك هذا بدنا يوفرا هذا اللي كيوال الذيري وحنصوت دورنا قد وحنصوت دورنا إن شاء الله قد ده سوحنا قد ده كل قدوم يكو حجاني يوم حوق هاي قد كل نقطة تفرسمه نينكست أو حلقة شوجا أو حلقة تغيير نينكست أو حلقة شوجا وحلقة تغيير وقال لقطة تغيير ويارك نبى لقطة تغيير ولقطة صدره يعني حد من عذر دارا قبل يظهر رجع يدور بقى إن شاء الله وحنا سمعنا دون هذه الأجراء وحياة قوانا إنه كل يوم وضعت وإحنا وأنا واحد لقوا تشانيو لما أنت بنا تشان لو قد دينه وحنا كم إذا لبركوكا كل أسبوع إحنا تنا لما أنت بنا أنتي هلك كشيء كسي وأرمها أقوم يمسن هو وين كتير هلك أنا كلا كلمة ضد كان خير باخر مركز هلك يمادا قبضة هو وين لا كلمة مركز هلك يمادا وين إن محاور هذا من أي واحد بيرابان يو نختار أي تجان يو هذا يندك عفات كوي مانا يا هذا يندك أرضي ذا لفتقو دوا ترى الشرقية ذا هلك الدلك كتير قف أنفه سنين
oo badan dad badan ay rajada ku qaateen iyadana waan ogahay marka waan ku hawlgeli doonaa waxaas iska dhan cid kasta oo aqoon lagu tabayo insha Allah waan u yeeri doonaa hadalkana badin maayo haddii la yiraahdo waa salaamu calaykum warahmatullahi ما شاء الله قول يقبلني ما هالكا إنه قلنا لطي مدة دائرة وحي أنو كسر شقيني يشقدي أنو ودني هالكا سانو كياني ما أها إن أنو هالكا كجهنو سومالي دو واحد رادين أنا جاي يريد ديسكريب أنا جو وطن كان ديجان رسمي يكون إيه بس هو حقيقة جو إن أنت أن وطن كان دحجوجو in aan la shaqayn doono gudoomiyaha garab taagnaan doono dhamaantiina waxaan idinka codsanayaa inaad sidaas oo kale idina u garab istaagtaan oo aynu mar walba iska warhayno wixii war oo dambe waxaynu ka wada war qaadan doonaa barteennii aynu markii horeba ku soo gaadhnay guushan ah halka inaynu isugu nimaadno wixii xogo oo dambe halkaas ayaad kala xiriiri doontaan gudoomiyaheena cusub mar labaad iyo mar saddexaad baa waxaan leenahay hambalyo guul iyo gudubka inoo soo qabatay iminkana shaaha iyo biyaha iyo kafeega inoo yaala waynu u dareeraynaa qof walba wuu tegayaa waxaan jeclahay insha Allah salaadii maqribna waaba ina haysaa salaadeena markaynu tukano qof allaale iyo qofkii wax ku dari kara oo la ciil qaba inuu kelmad yiraahdo waanu siinayna waanu ka soo qayb gali karaa waanu hadli karaa oo aad baan uga xumahay waxaan maanta mar hore aan casuumay Sheekh Cabdirasaaq oo isaguna kamid ah culimadeena waa kunti xabash culimadeena oo isagu waa inoogu soo khatimi doona ducadana waa inoo aqbali doona insha Allah iyo marka aynu waxayna dhamaysano oo aynu salaadeena tukano Xasan Xaaji Maxamed waxa weeye waa sheekheena reer Ankara in la yahay hadda ma sha Allah waa Sheekh Xasan Xaaji Maxamuud waxaan leenahay falyatafadal Sheekh Xasan السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم طبتم وطاب مشواكم وتبوأتم من الجنة منزلا إلهي سبحانه وتعالى يحمديه ويحفظ سلامية سلامة إسلامك إلهي سبحانه وتعالى أن نقدقوا وسيدة هلك كان نسكونني جعيلا نسوق ابن درتيد يهلمه يقرأ منه لقد حيثة هولفين كستي دمان كهلي قرابيين حدنا جيل لو تجرا حدنا جيل ولا كلا ليه إلهي سبحانه وتعالى وحميتي سنينا في مقعد صدق عند ملك مقتدر يملككم بيو في مقعد صدق عند ملك مقتدر يملككم بيو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جنة إلهي سبحانه وتعالى نروك المياه وجيسانينا وحا كنتي آدي فرحات إلهي سبحانه وتعالى لغو مهديا كلك كان شرفت له وجيه ذا نور يقرح ذا بدن يقيمها بدن يسكوكي مادي يقو نفتي وحا يسكوكي هي جعايل لحظة ehelnimo iyo qaraabanimo islaamnimada ka horeysa wixii inta ku xiga ehelnimo iyo qaraabanimo iyaga oo doonaya inay adduunka sida talqiixin waxa la yiraahdo ku wada noolaada si Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta yawm al-qiyaamo darajooyin sarsare u gaarsiiyo